kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa Wilderness Media ku soo dhawaada warka maalinlaha ah ee halkan aynu ku soo gudbino war wixii dunida dacaladeeda ugu dambeeyay gaar ahaan Soomaaliya idinka oo nagala soconaya baraha bulshada aan ku leenahay ee Facebook iyo YouTube ee Wilderness Media oo aad markasta halkan nagala socon karto haddii aad ku cusubtahay barkan YouTube aan ku leenahay ilaa uu inaad xukuumadda saaxiibadana shirkii lagu balansanaa 20 bishan inuu ka dhaco magaalada Muqdisho oo fashilmay iyadoo la hubsaday inaysan dhacaynin maalinka bari ah Soomaaliya oo jawaab kulul ka bixisay warar been abuur oo saxaafadda Kenya iyo dawladeeduba ay ka bahaysay kiiska badda ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya dagaal culus oo maanta ka dhacay magaalada Jowhar midowga musharaxiinta oo dalbaday in laga qayb geliyo shirka ka dhacaya magaalada Muqdisho faallo laga qoray taliska Cali Guudlaawe waa madaxweynaha Hirshabelle iyo eedeymo aad u badan oo loo soo jeediyay isagoo la sheegay inuu yahay madaxweynihii ugu waxqabadka yaraa Hirshabelle intii ay dhisneed qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan Wilderness Media watahay daawadayaal qodobadaasi aan idin sheegay oo faahfaahsan ku soo dhawaada aynu ku bilaabano shirkii lagu balansanaa 20 bishan inuu ka dhaco magaalada Muqdisho ayaa fashilmay shirka ayaa la hubsaday inuusan dhacaynin maalinka bari ah oo ah Khamiis 20 bisha oo lagu balansanaa ilaa hadda shirka magaalada Muqdisho waxaan soo gaarin madaxda maamul goboleedyada qaar iyadoo maamul goboleedyada qaarkood uusan war rasmi ah ka soo bixin oo ay ku cadeynayaan in shirka si toos ah ay uga qayb galayaan madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland oo inta badan la filayay cabsina laga qabay inay dood ka keenaan shirkan ayaan ilaa hadda war cad sheeginin walow madaxtooyada Jubbaland ay sheegeen inay ka qayb galayaan shirka haddana ma aysan imaanin wafdi ka horeeya ama wufuud ka horeysa shirka waa wafdiga imaan doona madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ilaa hadda ma cadda shirkan waqtiga uu dhici doono xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaana shirkan iclaamiyay in 20 bishan lagu qaban doono dowladda federaalka ee Soomaaliya ma aysan soo saarin war ah in shirkaasi uu dib u dhacay ama fashil uu ku yimid hase ahaatee waxa ay dadka Soomaaliyeed dareemayaan in uusan shirkaasi ku dhici karin waqtigii lagu talagalay maadaama aysan muuqanin astaanta ama tallaabo hore loo qaaday oo muujinaysa in bari la isugu imaan karo shirka xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa la arkayay baraha bulshada laga daawanayay boor weyn oo ay u daabaceen shirka kaasi oo lagu dhajiyay meel laguna talagalay in lagu soo dhaweeyo laguna daafuro shirka hase ahaatee ilaa hadda lama cadeyn karo in shirkaasi waqtigii lagu talagalay uu ku dhaco haddii shirkan uu fashilmo ayaa waxa ay caqabad weyn ku tahay habka doorashada ee Soomaaliya waxaana laga cabsi qabaa mar kale in gacan ka hadal dib lagu laabto xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaana la sheegayaa in wada dadaal ah in shirkaasi waqtigiisa lagu qabto dhawaan ay ahayd markii ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble uu la kulmay beesha caalamka isagoo la sheegay inuu kala hadlay sidii Puntland iyo Jubbaland lagu qancin lahaa inay miiska wada hadalka u soo ay soo fariistaan midowga musharaxiinta ayaa iyaguna arrinkaasi ka hadlay maanta waana kugu soo gudbin doonaa warkeenan maanta waxaa laga cabsi qabaa in dagaal mar kale uu dalku galo haddii midowga haddii shirkaasi sidii loogu talagalay uu qabsoomi waayo midowga musharaxiinta iyo sidoo kale maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaa iyagu ku eedeynaya dowladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan madaxweyne Farmaajo inuusan jaanis u ogoleyn in ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya shirka si madax bannaan u qabto loona madax banneeyo iyaga oo dalbanaya in ra'iisul wasaaraha shirkaasi asaga lagala macaamilo madaxweynahana uu gacanta kala baxo watahay daawadayaal Wilderness Media ayaad nagala socotaan fadlan haddii aad ku cusub tahay bartaan aan ku leenahay YouTube iyo Facebook subscribe saaro like gare sidoo kale saaxiibadana u gudbi markana ra'iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalka ee Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed ayaa si kulul uga jawaabay hadallo la isla dhaxmarayay kuwaas oo sheegaya in dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Kenya ay ku heshiiyeen in kheyraadka ka soo baxa
badda lagu muransan yahay ay kala qaybsadaan. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed ayaa beeniyey warar sheegaya in dowladda Kenya iyo dowladda Soomaaliya ay heshiis ka gaareen khilaafka badda. Mahdi Maxamed Guuleed ayaa waxa uu tilmaamay in been abuur ay tahay warbixino lagu daabacay wargeyska The Star ee ka soo baxa Kenya oo lagu sheegay in Kenya ay la qaybsanayso dhigeeda Soomaaliya kheyraadka badda. Warbaahinta ayaa qortay in Soomaaliya iyo Kenya ay ku heshiiyeen inay qaybsadaan lacagaha ka soo baxa saliidda iyo gaaska 50-50 ay u kala qaataan. Waa mid aan asal iyo raad lahayn, ayuu yidhi. Waxaan ka sugaynaa xukun cadaalad ah ICJ oo ku saabsan muranka baddeena. Sidaasi waxaa bartiisa Facebook ku qoray ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya. Wargeyska The Star ayaa daabacay in ay aragtay warbixin sheegaysa in labada dowladeed ay min konton ay u qaybsan doonaan kheyraadka shidaalka ee laga soo saaro meelaha hadda doodu ka taagan tahay ee Kenya iyo Soomaaliya ay isku haystaan. The Star ayaa waxay xustay inay goor dhow dhinacyada ay tegi doonaan dalka Qatar magaalada madaxdeeda Dooxa si ay heshiiskaasi u saxiixaan. Dowladda Soomaaliya ayaa horey dhowr jeer u beenisay wadahadal ay la yeelatay dowladda Kenya arrimaha ku saabsan baddana ay kala hadashay. Arrintan ayaa dad badan oo Soomaali ah waxay ku noqotay fajac. Villa Soomaaliya agaasimaheeda Cabdinuur oo bartiisa Facebook ku qoray qoraal arrintan baddana uga hadlay waxa uu ku sheegay in saxaafadda Kenya iyo dowladoodu ay doonayaan in shacabkeeda ay dejiyaan. Waxa uuna sheegay agaasimuhu in dowladda Kenya ay shacabkeeda ku qancinayso xaaladii badda oo faraheeda kasii baxaysa, maadaama uu sheegay in ay u dhowdahay Soomaaliya in baddaasi loo xugmiyo. Dowladda Kenyana ay doonayso in shacabkeeda isaga qanciso in lagu xallin doono arrinka in loo kala qaybsado 50-50 ama kala bar dakhliga ka soo baxa halkaasi lagu kala qaato. Lama soo ogo ilaa hadda xaqiiqada dhabta ah ee hadalkaasi, waxaana laga yaabaa in wararka Kenya ka soo baxaya wax ay ka suurta galaan ama qaarkood ay run noqdaan. Warlalis Media ayaa weli naga daawanaysaan. Ha ilaawin haddii aad ku cusub tahay bartan Facebook iyo YouTube aan ku leenahay inaad subscribe saarato, like garayso, saaxiibadaadana aad u gudbiso. Markana magaalada Jowhar. Wararka ka imaanaya magaalada Jowhar ayaa waxa ay sheegayaan in dagaal culus uu ka dhacay maanta halkaasi. Faahfaahin dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa khasaare ka dhashay dagaal culus oo barqanimadii maantay ka dhacay qaybo ka mid ah magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabelle. Dagaalkan oo xoogiisu ka dhacay xaafadda Hanti Wadaag ee magaaladaasi ayaa yimid kadib markii ay maleeshiyaad ka tirsan kooxda macawisleyda ay weerar ku qaadeen fariisin ciidamada ammaanka ay ku leeyihiin halkaasi, iyadoo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. Wararka ayaa sheegaya in dagaalkan lagu dilay Cali Axmed Godaad Cali Madoobe oo ka mid ahaa saraakiisha sarsare ee madaxtooyada dowlad goboleedka Hirshabelle, iyadoo sidoo kale uu dhaawacmay Ciise Nuur oo ka mid ahaa shaqaalaha borotokoolka ee madaxtooyada Hirshabelle. Sidoo kale khasaaraha ayaa lagu waramayaa inuu intaasi ka badan yahay, balse ma jiro wax faahfaahin ah oo ilaa haatan ka soo baxday saraakiisha laamaha ammaanka ee magaalada Jowhar. Xaaladda ayaa weli ah mid kacsan, waxaana ishor fadhiya dhinacyada ku dagaalamay qaybo ka mid ah magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe. Dagaalkan ayaa daba socday xarig loo geystay taliye maleeshiyaadka macawisleyda ay leeyihiin oo lagu magacaabo Yuusuf Macalin oo loo yaqaano Dufaarow iyo 4 ka mid ah askartiisa, kuwaas oo xabsiga la dhigay kadib markii la isku qabtay lacago ay ka qaadayeen gaadiidka. Si kastaba, Jowhar ayaa waxaa horey ula daalaadhacaysay xaalad ka dhalatay fatahaadda webiga Shabeelle u geystay magaalada Jowhar iyo guud ahaan deegaanada uu ka taliyo maamul goboleedka Hirshabelle. Waa tahay daawadayaal, weli waxaanu ku jirnaa maamul goboleedka Hirshabelle iyo xaaladiisa. Faallooyin kala duwan ayaa lagu qorayaa maamulka Hirshabelle iyo madaxweynaha haatan talada haya oo dad badan ay sheegayaan in uu yahay madaxweynihii ugu liitay intii uu talada maamul goboleedka Hirshabelle u qabtay.
qoraal laga qoray arrintan ayaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa. 6 bil ayaa la sheegay inay kasoo wareegtay markii Khalid Guudlaawe uu ku soo baxay doorasho la isku qabsaday oo ka dhacday magaalada Jowhar waxaa isugu darsamay sida la sheegay masiibo ka dhalatay fatahaadaha webiga iyo dagaallo mararka qaarkood ka dhaca oo ugu dambeeyay kii maanta ka dhacay oo dhiig badan ku daatay. Golo wasiir ayaa la sheegay in maamulkaasi aan la soo dhisin ilaa hadda, madaxweynaha maamulkana lama caleema saarin. Hal maalin ayaa la sheegay in uusan madaxweynahaasi isku dayin inuu xalliyo caqabadaha reer Hiiraan ka taagan. Wararka ayaa sheegaya in musuqmaasuqii ugu daraa uu hadda ka taagan yahay deegaanada maamulka Hirshabelle, kaasi oo la sheegayo in madaxweynuhu uusan waxba ka qabsanaynin ama waxba ka qabanaynin. Ururka Al-Shabaab ayaa la sheegayaa in deegaamo ka mid ah maamulka Hirshabelle oo hore aysan u haysan ay hadda gacanta ku soo dhigayaan. Dad badan oo maras ah ayaa lagu dilay deegaanadaasi. Lacagihii mashaariicda ayay dad badan sheegayaan in meelo kale loo leexiyay oo loo maray qaab aan sax ahayn la marsiiyay. Hiiraan ayaa la sheegay in uu ka quustay madaxweynuhu inuu tago. Gobolkaasi ayaa la sheegayaa in xaaladiisu ay aad u daran tahay, maamul xumo aad u baahsan oo ka jiro. Dadka deegaanka ayaa ka cabanaya arrintan iyaga oo dalbanaya in madaxweynaha Hirshabelle uu isbeddel ku sameeyo hab maamulkiisa. Waa tahay daawadayaal, Warlalice Media ayaad nagala socotaan. Halkaasi aan uga gudubna arrinta Hirshabelle iyo maamulka halkaasi ka dhisan xaaladda ka taagan. Markana qodobada ugu dambeeyay ee warkeena ayaanu kusii siqaynaa. Midowga musharaxiinta dowladda federaalka ee Soomaaliya kasoo horjeeda ayaa dalbaday in shirka arrimaha doorashooyinka laga qaybgeliyo. Shir jaraa'id oo uu maanta ku qabtay magaalada Muqdisho, afhayeenka midowga musharaxiinta Daahir Maxamuud Geelle ayaa lagu sheegay in wadahadallada arrimaha doorashooyinka ay tahay inay ka qaybgalaan musharaxiinta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Daahir Maxamuud Geelle ayaa sheegay in musharaxiintu ay doonayaan inay ka qaybgalaan shirka berri, isagoona si rasmi ah u sheegay in ay taageerayaan in doorashada ra'iisul wasaaraha federaalka ee Soomaaliya gacanta loo geliyo. Musharax Daahir Maxamuud Geelle oo ka hadlayay madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in shirka madaxda uu saldhig u noqon doono heshiiskii 17 Sebtembar, sidoo kalena looga wada hadli doono xalinta ismariwaaga ka taagan qabsoomidda doorashada Soomaaliya. Afhayeenka ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in shirka ay kasoo qaybgeli doonaan madaxda dowlad goboleedyada, isagoona sheegay inay muhiim tahay in ra'iisul wasaare Roble uu hogaamiyo shirka berri ka furmaya magaalada Muqdisho sida lagu wado. Ugu dambeyntii, afhayeenka ayaa sheegay in musharaxiintu rajo wanaagsan ay ka qabaan in natiijo wanaagsan ka soo baxdo shirka berri ka furmaya Muqdisho. Maalinta berri ah ayaa la filayaa sida qorshuhu yahay in magaalada Muqdisho uu ka qabsoomo shirka uu dhowaan iclaamiyay ra'iisul wasaare Roble, kaasi oo looga wada hadli doono xalinta muranka ka taagan doorashooyinka Soomaaliya, taasi oo in muddo ah soo jiitamaysay. Daawadayaal, Warlalice Media ayaad naga daawanayseen. Fadlan haddii aad ku cusub tahay bartan YouTube aan ku leenahay, subscribe saaro, sidoo kale Facebook-geena like saaro, saaxiibadaada u share garee. Mar kasta iyo saacad kasta halkan waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee dalka Soomaaliya gudihiisa meel kastaba ka dhacay. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal, halkani waa Warlalice Media. kusoo dhawaada warka maalinlaha ah ee halkan aan idinku soo gudbino war wixii dunida dacaladeeda ugu dambeeyay, gaar ahaan Soomaaliya. idinka oo nagala soconaya baraha bulshada aan ku leenahay ee Facebook iyo YouTube ee Warlalice Media, oo aad mar kasta halkan nagala socon karto. haddii aad ku cusub tahay bartan YouTube aan ku leenahay, ha ilaawin inaad xukuumadda saaxiibada aad u gudbiso. qodobada maanta aad ku maqli doontaan warkeena